maanta August 14 tahay waxaan la kulannay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi anagoo ka kooban labadii board ee DB World iyo Free Zone-ka shir weyn aanu yeelanay oo madaxweynaha ugu yeedhay oo aanu iska wareysanay wixii jiray ilaa imika soo socday oo aan warbixin fiican siinay madaxweynaha iyo siday wax u socdaan iyo tikada oo ay ka soo qayb galeen saddexda maareeyaha Haamaha ee cusub maareeyaha Free Zone-ka iyo maareeyaha tikada Berbera أنا كهذا اللي مقع DB World Berbera مدحنا عاد بانو بهالنقينا وضشقين ونكسرنا إن شاء الله ونوضيالن دونا هرانا بانو ويالناي وحنا وشجعنا ومضى سرير سوماليلاند ملكستي شوغان إن أي شقدي DB World يو Free Zone كي أي بلاد من دونا هدي لها كديكو حنقول بشارين إن أكتوبر مدحنا ودقح دقي دونا تكدي بلادين تيدي 400 متر lagu darayo oo multi purpose oo container kile channel cargo gi iyo wax kasta oo tikada casri ah ay lahayd in la bilaabi doono hadii Ilaahay ka dhigo oo ay soo dhamaatay wixii hawla ay ku xeernaa oo dhami taas waa bushaarada koobaad waxaan kale ugu bushaaranaynaa ummadda reer Somaliland siiba aan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee tikada Berbera mudane Saciid iyo oo ay soo iibsadeen oo tikada Somaliland ay soo iibsatay taag boodkii ugu horeeyay laga bilaabo 1972 ilaa imika mid yar ay Somaliland lahaan jirtay maanta waxay soo iibsadeen kii ugu casrisanaa ugu weynaa insha Allah una maalin dhow la soo bandhigi doonaa shalay shantii galmo ay soo tikada Berbera ku soo xidhay dhibaato badanna uu tikada ku xirnaydna uu hagaajin doonaa bashaaro weyn waxay u tahay dadka businessman-ka waxay u tahay Somaliland oo dhan in tikadoodii la casriyeenayo oo dhaqaaqayso oo ay la jaan qaadi doonto hadii Ilaahay ka dhigo tikadaha geeska iyo kuwa caalamkaba madaxweynaha maanta si gaar ah ugu mahadnaqnay waxaan ugu mahadnaqnaa soo dhaweyntiisa iyo wada shaqeyntiisa Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaynu reer Somaliland dhan wax ku farxaan oo ummadda wax weyn u tara oo raandis leh inay ka soo baxaan tikada Berbera iyo gaar ah iyo shaqadeedaba hadii Ilaahay ka dhigo aniga ku hadlaya magaca gudida agaasinka free dekadaha iyo Free Zone-ka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi oo maanta isku yeeray shir dhammaan mas'uuliyiintii ka shaqeynayay ama ka howlgalaysay dekada Berbera saddexda maareeye Free Zone-ka iyo dekada iyo Haamaha iyo labadii board boardkii DB World iyo boardka dekadaha iyo Free Zone-ka waxaanu ummadda Somaliland u sheegaynaa in dhammaan mas'uuliyiintaasi ay maanta howlgalkii ay bilaabeen hawshaana ay runtii aan ku rajeynaa in aad uga faa'iido doonto shacab weynaha Somaliland aad uga faa'iido doonaan Free Zone-kii oo runtii imika inoo bilaabay design-ka uu dhamaaday howlgalkiisa uu bilaabmayo kale oo mahad ah waxa Ilaahay mahadiya inay noo yimid toogii muxuu ahaayay taagii noo yimid dekada inoo yimid oo ilaa 1972 kaanu isticmaalayna kan aan ku bedeli doono kaasoo tayo badan u kordhin doona shacab weynaha isticmaalaya iyo business community-ga isticmaalaya waxaanu ognahay inay dekadu tahay laf dhabarka dhaqaalaha Somaliland haddii maanta aynu ka mid dhalinana uu dhaqaalaheenu aad iyo aad isku bedeli doono aad iyo aad baan mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu mahadcelinayaa shirkaas kuwa ay yeeray waan mahadsantiin